soo baxo waxa qaldan laakiin shaydaankii oo sii jiidanay iyo waalidkii oo qaylo iyo habaar guriga la fadhiyo baa sugay marka goormuu isbedelaa mar kasta laakiin macala hataa dadka waaweyn oo balwada iyo wax ay jiidato mar walba way jecel yihiin inay ka baxaan qof rabo ma jiro inuu xumaan ku jiro qof kasto hadduu fanaan yahay haddii ka wax qaldan ku jiro mar walba wuxuu jecel yahay inuu ka baxo laakiin mar walba shaydaankaa jiito يدين حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لولو إدين سو نقطي وحان كهد لنا قيب تلبات سي وصاحبتين أدي قبل هذا أباي إيسو ويديسي مرك إن شاء الله وينو سعط وكسي سعنين هادو إلهي يرادو waxaan aqbashaa markuu cunuga inuu ka wareerayo aragtid oo inuu faraha ka baxay aragtid ama uu ka baxo wax uu qof walba oo saaxiibkiisa uu markaas wata caynin soo dhawee ma fahamtid saaxiibada aa wadatidoo dhan ii keende soo dhawee casuun meesha rabaa isla gee marka uu cunugu ku arko wax walba uu gadaala iskaga imaan doontiin adiga ma yeelaysid oo waxa leedahay waxaan uu qaldan yahay laakiin ha dhihin isku day inaad dul qaadatid saaxiibihiisa hadday qaldan yihiin hataa u dulqaadatid asaga cunuga hadduu qaldan yahay hataa u dulqaadatid wuxuu kuu sheegaa aad dhegaysatid anaa ku dhahay markaad ducaysatid sadaqana aad baxsatid ilaahayna aad baridid maaragtay qalbiga wanaaji qalbiga ma aha xijaab la xirto maxaa la dhaatan oo qalbiga laga jiran yahay sadaqaa la bixina qalbiga laga jiran yahay wax walba la sameeyna xaasidnimada qabyaaladii halkaas ka buuxdo wax kala soconaya ma jirto halkaas haday nadiif tahay waxa rabtid gishno halkaas qalbiga waa muhiim inaad ka nadiif tahay laakiin xijaabkayga xirtay masaajidkii aan kaaga hormaray dambigii iyo warkii iyo hadalkii iyo wax walba iyo sadaqada wax walba kaaga horay halkaasna waa ka jirin haday socoto oo qabyaalad iyo qurna iga buuxdo wax kala soconaya ma jirto iyo xaasidnimo iga buuxdo marka waxa muhiim ah cunugaas isku fahmileedeen ha qaldanaad ha saxnaado saaxiibada uu wato aqbal si niyadna u aqbal saaxiibadiisa soo dhawee saaxiibadiisa muufiga la gee saaxiibadiisa marka cashada aadaysiin wada soo wadde oo cashada ku raacaan meel ala meeshu asaga uu ka casuuman yahayna asaga ku dhaayo waalidkiis marka saaxiib la noqotid because waxa ma ka qarsanay wax walba oo qalad iyo sax asaga laha waad aqbashay waad accept garaysay waad ku soo dhaweysay heer wuxuu gaaray meesha asaga uu ka casuuman yahay uu ku dhaw adna markaada ku raacay adna markayga raac marka dambana wuxuu gaarayaa inuu dhaho bal maalin walba waalidka maqaayadana hooy aan rabaa inaan kasoo cunteeyo alla hooy maqaayadaas baa rabtaa inaad kasoo cunteysaa hooy maqaayadaas sit waxeeda ma iska dhaaftay ma fiicina haddaa dhahdi wuxuu ku leeyahay maya okay haye orod aad ani kolley maqaayadaas wax kama cuneen haddaa adii jecesha hooy inaa wax ka cunto hoo lacagta kusii banaanka kusugaa soo qabso dharkaanaan rabaa maya hooy ani ma jecli laakiin adi ma jeceshahay inaa xiritaa dib ma lahay haddaa adiga jecesha iska soo qaada laakiin ani ma jecli aniga been kuma sheegay hooy ma jecel dad islaamana laakiin haddaa adiga rabtid iska qaado sababta ay tahay maalinta dambe been inaan kuu sheegay hadalkaas haddaa dhahdid 1 week sheekaas bisi soconaysa wuxuu isleeyahay bal wax kasta oo adiga rabtid oo hooy iyada ay rabto way kaaga tagtay ama aabi hooy waxay rabaan way kaaga tageen wax walba oo maxaa la dhahaa adiga rabtay kuu sameeyeen marka dambe wuxuu leeyahay waay iyaga waxay rabaan ugu sameyn lahayd meel igeeyaa tiri way ku geeyeen wax qaldan xataa uu u jeedo cunugu ka yaqaana uu jecel yahay wax markuu qaldan yahay inuu markasta ka soo baxo waxa qaldan laakiin shaydaankii oo sii jiidanay iyo waalidkii oo qaylo iyo habaar guriga la fadhiyo baa sugay marka goormuu isbedelaa mar kasta laakiin macala hataa dadka waaweyn oo balwada iyo wax ay jiidato mar walba way jecel yihiin inay ka baxaan qof rabo ma jiro inuu xumaan ku jiro qof kasto hadduu fanaan yahay haddii ka wax qaldan ku jiro mar walba wuxuu jecel yahay inuu ka baxo laakiin mar walba shaydaankaa jiito yadii la weydiiye mid ku dhahay mal waa raba ama habya qof ku dhahay ma jirto marka wuxuu isleeyahay maalin walbo aabbo iyo hooyo waxa iyaga ay raalli ka ahayn bay adiga ku raali geliyaan ay kuu sameeyaan
bal adigu maanta bal waxay iyaga raaligelintooda u samee asaga isgaranaya wallahi asagoo qofna la talinin intuu meel fariisto maskaxdiisu ka helaya jas qalbiga u fur hana isdhihin ma aragtay wiilkaada waa sidan wuu xumaada iyo wiilkaada balwadu barta iyo gabadhan surwaalay gashatay jid lama mari kartid iyo dad waalidoo sas ku jirtaa jid iyo markuu cunuga saab war ani saa igu maraacaysid noocan igu maraacaysid iga dabahar ha dhihin nooca uu yahay waa inaa habi ku noqoto adaa dhalay waa inaa habi ku noqoto shaydaanaa duftay soomo ilaahay shaydaanka duftad uu kaaga soo celinaya gacmaha kor u qaad ilaahay u bari ummadda islaamkana iska nabadgeli ummadda islaamka haddaa iska nabadgelis wax kasta way ku hagaagayaan ma fahamtay aniga ayaan luulo idinla hadlaayo waxaan idinkula talin lahaa intaas wax walba oo qalad ah oo cunuga uu ku sugan yahayna wuu toosayaa wuuna ka baxayaa wuuna isgaranayaa adiga u aqoonsanow aaminna cunugan yar wax alaal wuxuu jecel yahay u samee jas hadda sida oo qamri oo kale u gad kuma dhahay hadduu wiilka qamri cabaa qamriga u gadoo kale kuma dhahay ma aragtay waxyaalahaas oo kaleeto ilaaha naga madoobeeyo ilmaha suubina allah ka madoobeeyo laakiin muufigoo kale shaari surwaalkoo kale bismillahi raxmaan raxiim ana qaracana igu noqotay haddaa u malaynaa wax sas easy u ah wallaahi bilaa maba iska hor imaaneen one day iskama hor imaaneen ma fahamtay laakiin waxay igu noqotay bismillahi diinta islaamka inay ka baxdo kale bay igu noqotay maalinta surwaalka ku arkay waana qaracmay iyo sida qofku uu igu sheegana oo fool xun iyo mar munaasab in lii sheego qofkaas uu iiga nixiyey mana fiicna saas oo kale qofka walaalka inaa uga nixisid si tartiiba fiican inaa wax ugu sheegtid daa u sheegaysid marka waxaan idin leeyahay caruurta la saaxiiba intayna waxaas gelina marka hore saaxiibnimada waxaa ka mid ah intay yaryariin 13 14 markay jiraan samaysta ani waaga hor baan idinkuma sheegaya ma isku kiin aaminay gabadheeda shaqan badanna maasha allah dadkii yaqaane naagaha waaweyn hataa maysa gaareen waxay ii qabato maasha allah waxaa waa intaan guriga dhan oga tago oo caruurta homaayada kala shaqeeyo oo ilmihi dhal dhabta u saaro bay waxaan ku leeyahay iskuulkeeda iyo dugsigeeda soo adkeen aan wallahi billahi aan ka sheekeyn ilaa afar horta gabadhaas yar igala tagay maasha allah alxamdulillah haddan way ii fiican tahay laakiin waxaan idiin sheegayaa aniga meel kasta iska mari jiray iskuma kinfaaninahay laakiin markii dambe taasaan waagu ku baryay cashiray ii noqotay oo waagiya ii baryay hurdada ka toosay inta yaryar iyo hadda ayada waxaan sameynaa ayadana kuwa kaleeta hadda waxay u tahay hormuud wiiga hal maalin casho weli hadday gabdho kuu joogaan wiilasha aabahooda ka mas-uul ah waxaa sameysaa wiigi hal maalin waa inay casho aadaan wiigi banaanka inay aadaan meel alle meesha weliba maqaayada iyaga habi ku yihiin waa inaad kasoo wada casheysaan adiga iyagaba hadduu ilaah yiraahdo farxadooda ka tali waxay rabaan waxa adiga rabtid oga tag waxay iyaga rabaan u samee insha allah beriyo kuu sameyn doonaan ma garatay saaxiibo qaldan haddaa cunugaada ku aragtidna hayswaalin hana qaylinin hana buuqin hana habaarin hana karaahsanin kuwaas dadaa dhaleen iyagana soo dhawee deji inta hooyo cunug qaldanaa usoo qabtay maa cadadnaa xisaab male oo u waaniyo oo wax uu sheegay ayaga laftirkooda markay ku arkaan cunugaada inaa gacanta ku dhigantahay oo habeer casho maaratina anaa idin geynaya tira oo ka bixisid oo muufiga adig geysid ayaga laftirkooda marka dambeeta inta toosanna waa iska soo toosayan inta kalena ayagaa iska tegayaanbo oo cunugaada kusii mashquuleynin marka waxaan leeyahay muhiimadda ugu horeyso waxaa waaye wax qaldan haddaa cunuga ku aragtid ha ku buuqin ha qaylinin qaladkiisa kusoo dhawee taas waa horta kow number 1 hadduu uu ku toosan yahayna alxamdulillah hadduu cunug qaldan uu yahay inuu qar kasii dhacay aragti saaxiibo xunxun uu wato ha qaylinin saaxiibadan ka reeb horta ha isku qufuline asaga iyo macal saaxiibadiisba soo dhaweyso halkaas soo gasho guriga soo geli soo dhawee dharka xataa asaga u gad saaxiibadiis giftiga sii maaragtay maasha allah ayagana dhinacood wacdiga uga wad wax walba oo samaynaysin waxaad tirahdaa okay waa daade oo jecesha doo qaada waa iska qaada laakiin aniga kama helin u sheeg inaada ka helin asagaa marka dambe wuxuu leeyahay maalin walbo adiga waxay ka talisaa hooyo wanaagaada iyo waxaa jeceshahay bal ayada marka dambe waxay jeceshaa u samee markuu arka lacagta caruurta walaalihiis ay u baahan yihiin wax ugu gadaysid ama caruurta walaaleed ay u baahan yihiin lacagta ay u baahnaayeen wax ugu gadaysid marka dambe cunugaas uu isdaba qabanaya been inaan ku sheegaynin taas ku fiiriya inta yaryarna waxaan idin leeyahay hadda idin sheegaa la saaxiibo gabdhaha yaryarka ah halala saaxiibo wax alla wax iyaga hadda jecel yihiin u ogolaada intay yaryar yihiin
wax alle waxay jecel yihiin u ogolaada lana fariista saaxiib kale intuu beri kaa siin lahaa wax hadda hal mar maya dhahdo oo aragti cunugu inuu kusoo noqdo oo haddana maya tiraado oo aragti inuu kusoo noqdo mar saddexaadka maya hadhihin raadi waxaas qofka oo u samaynayo oo tustusinayo adi u samee haddee ku dhahda heblaha maanta idhahda muufiya ku geynaa maya dhahd ee beri kugu soo celisa oo maya dhahd maalin saddexaadka maya haddaa dhahdid fadhiga ka kac muufiga adiggeey heblaha waxay ku leedahay baadday qabta oo casuumtay haddee maanta ku dhahdo waxaa waay sheekada berina waxaa waay way casuume berida kalena way casuumi moo hebla maa idin casuumtaa hooya insha allah heblaha hadee idin casuumtay anaa idinka bixinaa idin wadaayad ma fahamti marka dambe cunuga wuu kaa yeelaya hadduu maalin uu ku diido maalinta labaad maalinta saddex adiha qasbin qasab kale iyo xanaaqa iyo qaylada iyo buuqa kala hortegina insha allah saasaa idin leeyahay asxaabteeda waa idin jeclahay walaashin ayaan luul intaas waxaan ka ahayno idinku soo saa-idinaysa ma lahan wixii saxnaadayna waxaa waaya ilaah xaggiisa ka ahaatay wixii qaldamayna nafteedii shaydaani ka ahaatay asxaabay waxaan idin leeyahay waa idin jeclahay ilmaha yararo eedooyinkii habaryaraha u ahayna maasha allah experience intaasaa idinku soo saa-idinayaa yaan la qasbin caruurta waa waajib in wax loo sheego laakiin bii-ad naga xoog badanaa joognaa ummadaha kale aan la noolnahay waxaa waaye dhaqanadooda way ku adag yihiin ma arkaysid qof bakistaan ah oo adi waxaa xiranaysid interest ku ah ma arkaysid qof hindi ah oo dhaqankaada interest ku ah ma arkaysid maxaa la dhahaa qof qoladay doonta aato qolo dhaqankaada interest ku ah haddaa soomaali tahay oo qof soomaali ah tahay qof dhaqankaada interest ku oo rabo ma jirto laakiin soomaaligii wuxuu interest ku yahay dhaqankiisa inuu ka tago luuqadiisa inuu ka tago runtana walaalayaalo been idiinma sheegaya runta waa isku nacnaa beentana waa isku jecelnahay runaa idiin sheegaya ani intaas soo noolahay runta waa sheegaya dad badanaa jiro baryahan youtube-ka ma aragtay inaan ma aragtay aan hadalkii badnaa aan hadlahay dumarka ku dhigata lalahay inaan sas oga haray sas ogama harin youtube-ka waa soo noqday beenna idiinma sheegay rag iyo dumarba dhaliilahooda waa sheegaya raggana waa soo wadaa baarti wanaan ka hadlay insha allah waana ka hadli doonaa baarti tuugooda hadduu ilaah yiraahdo beenna idiinma sheegaya runta iskuma jeclin runta waa isku necebnaa walaalayaalo ilaahay ha laga boqo been aan isku jeclaano waxaa matareyso wallahi inaysa meel gaaraynin runta aan isku jeclaano runta aan isku wadano qabyaalada aan iska dayno qabiilkii quranka aan iska dayno ma aragtay ilaahay aan ka baqno ummadda islaamka intii isfahamtaa walaale ah intii isfahamtaa laisweydiinayaa dariskaada qoladay doontaa aad ayaga aakhiro lagu weydiinayaa qabiil inaan aakhiro lagaa xisaabinayn ma fahamti marka insha allah waxaan idin leeyahay sidaasaa idinkaga tegayaa like-ta iyo sheerta iyo commentiga janalka ayaan luul kusoo yaca asxaabta cusubna waxaan idin leeyahay mininkiin waaye soo dhawaada subscribe gareeya gambaleelka furta waxyaalaha ayaan luul soo geliso si aa u aragtiin waa idin jeclahay I love you so much waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت